salaamu ullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay halkani waa bartaynu ku leenahay facebooka iyo youtube-ka ee somali super sport waa saaxiibkiin cismaan fantastic mar kale waxaa marti inoo ah saaxiibkeen qays inta uu joogo magaalada nairobi dabcan barnaamijyo badan oo aad ku arki doontaan dunida ciyaaraha tube ayuu ka tirsan yahay mar kale soo dhowaada waxaanu ku dul istaagi doonaa daawadayaal xaaladda xidiga lagu magacaabo Sadio Mane xidiga sida muuqanaysa waa uu baxaya farin adag ayuu diray dabcan Liverpool ina waa ay diraysan yihiin xaaladda laacibka haddii ay tahay markii kugu horeysay waad soo booqatay bartan sii shargaray u gudbi asxaabtaada kuma jira halkan qays soo dhawow aad wanaagsan tahay saaxiib Usmaan Xasan Cali Fantastic mar kale iyo waliba Somali Sport markaa kuna wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay mar kale inaan wada kulanno insha Allah qays dabcan hadalka ka soo yeeray Sadio Mane ma yahay fariin ah in gabi ahaanba xiriirkii u dhaxeeyay laacibkii kooxda inuu soo dhamaaday umaadsan tahay muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda Liverpool iyo waliba Sadio Mane waxay ahayd mid maalinba marxalad kusii kordhaysay isla markaana bilowgii waxaan ognahay sanadihii 2 sano ka hor 3 sano ka hor isku dhici Mohamed Salah iyo waliba kan macnaha bilow hore buu ahaa wax marka dhacdooyin badan oo isbiirsaday ayaa horta sababtay heerkan in la soo gaaro sida hadda muuqatana warbaahinta dhan bay tilmaamayso Sadio Mane waxay u muuqataa naadiga kubadda cagta Liverpool in uu ka dhamaanayo Liverpool iyo waliba isaguba ma jirto marxalad dib ay ugu kulmi karayaan inkastoo kubadda cagtu waa wax mustaxiil aysan ka jirin laakiin cilaaqada labada dhinac waxay gaartay heer markaasi kala tag ah heer muruga heer labaduba aysan is aaminsanayn marka uu leeyahay aniga waan ixtiraamaya hadalkiisa hadaan ku noqono aniga waan ixtiraamaya kooxda aniga waan ixtiraamaya oo waan qadarinayaa taageerayaasha maamulka iyo macalinka laakiin maamulka sare ee Liverpool ma ixtiraamayo waxaan ixtiraam u hayo ma jiro isagoo ula jeeda marka wixii uu kala kulmay marka gabagabadii inay tahay dood fara badan kama taagna taas laakiin maxaa xigi doona iyo sidee loo maareyn doonaa bixitaankiisa unbaa maalmaha soo aadan laga hadli doonaa laacibkan maxay tahay dabcan ciyaaraha waad ku dhex jirtaa waxa uu tabanayo ee keenaya in uu qiro in xiriir wanaagsan uu kala dhexayn maamulka wallahi horta qofka jidka maraya ama qofka caadiga ee sportiga xiiseeya markaad weydiisid Liverpool superstar-keeda ko wuxuu ku leeyahay Mohamed Salah waana halka mushkiladda ka jirto dabcan laacibkan iyo waxa laga yaabaa Firmino iyo isaga iyo saddexdu marka isba bardhigno Firmino Salah iyo Leo Mane Firmino haddii uu san goal dhalin kulanka dhibaato uma arko laba assist uu sameeyo waa shaqadiisa ma laakiin Salah haddii uu goal dhaliyo Mane wuxuu ku dadaalayaa goal inuu dhaliyo Mane haddii uu san dhalin Salah wuxuu ku dadaalayaa inuu dhaliyo marka qaar waxa ka dhici jirta marka inaan loo baasin xidiga idoo xidiga kale u baasi karay uu san u baasin mid sababtoo ah tartan baa jiray tartankaasi wuxuu u gudbay markaasi in ay Liverpool saameyn ku yeelato sababtoo ah maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool waxay dareen gaar ah marka ay siiyeen Mohamed Salah taageerayaasha Mohamed Salah bay siiyeen heer ay gaareen markaasi in ay taageerayaasha marka ay ugu heesaan heesta Mohamed Salah ninkan waxa uu tabanayaa ixtiraam darro oo ah dhanka maamulka wadarkiisa maana heshiiskiisa wuxuu dhacayaa isla waqtiga Salah u dhacayo haddana ma aragtaa laba is weydiinayso oo yani heshiis cusboonaysiintiisa ma jirin sida kan loo qabsaday oo loo ahmiyad yeelay looma ahmiyad yeelin macnaha wuxuu dareemayaa in laga hoos dhigay ahmiyad badan uusan u lahayn laakiin Salah uu kaga ahmiyadsan yahay marka haddiiba sidaas ay tahay wuxuu u arkayaa marka in ay tahay gudahan baa la kala tago waxaan ahayna marka aysan jiri karin dabcan waan gartay Bayern Munich ayaa ilaa haatan ah kooxda markaasi raadinaysa ayagana Lewandowski ayaa ka tegay oo sidaan oo kale isan ixtiraam darre sheeganaya marka aad fiiriso kubadda Bayern Munich ee Jarmalka iyo Mane oo aad ula qabsaday Liverpool Ingiriiska mise leedahay uu ku soo baxaya waxaan arkay Paul Morrison oo isagu u digaya isla markaana la halka kuma guuleysan karaysid laakiin dhanka kale haddaan ka fiirino ninkan isagu wuxuu aadi doonaa horyaal ka yar horyaalka waddanka markaasi Ingiriiska wuxuu aadi doonaa horyaal ka shacbiyad yar marka la horyaalka Ingiriiska sidaas daraadeed cadaadiskana waa ka yaraan doonaa marka la waxa laga yaabaa
dadka hadda daawanaya barkood inay daawanayaan ama xitaa Bayern la daawado marka Champions League ay ciyaarayso taa oo kudsanaysa marka in ay tahay horyaalku ka hooseeya dhankaasi waa positive oo ka bixi karaya la aaminaya laakiin haddana door iclaami iyo bumbuunin toddobaad kasta marka adigu Premier League laga daawanayo nadiga Liverpool oo kala joogtid hubaal waxa markaasi in opportunity badan aad u isticmaasho fursadaha ay ka badan yihiin fursada marka Bayern Munich laakiin ogsoono hadana Bayern Munich nooc ma wuxuu ku fiican tahay in xidiga ay u sabrayso in waqti ay siinayso waxaan ognahay Leroy Sané markii uu ka tagay horyaalka Ingiriiska isla markaa halka uu tagay Janis badan bal si waqti xilaareedkiisa ugu horeeyay ma fiicnayn wili ilaa hadda waa ma dhaawacayna waa u nugulaa marka dhaawacaydu waa iska dhacay laakiin ma lagu kama dhigna in lagu sabrayo kooxaha qaar kuma sabrayaan horta hadda Hazard marka la soo qaaday Madrid waxa ku dhacaya kaanama waxa laga dhigay laacib weligii aan ciyaarin kubadda cagta kale ay u dhaqmayaan Marca iyo wargeysyada Isbaanishka waana waxa yeelaya xasaasiyada labada kooxood ee Barcelona iyo waliba Real Madrid marka waxaas kama jiraan halka wuxuu heli doonaa marka fursad ka fiican marka ay timaado cadaadiska laakiin door iclaami horyaal weyn show badan oo marka uu heli lahaa ma heli doono marka laga hadlayo horyaalkaasi marka saameynteedu way jiri doontaa aad u mahadsan tahay qays dunida ciyaaraha tiyub ayuu ka tirsan yahay Somali Super Sport ayaa daawanaysa fadlan si share gareeya janaalka rukunta waxaan idinkaga tegaynaa khiyartana daawanaysa sida ayuu fiican